أنتم كما قلت لكم لستم كباقي الجاليات والمهجرين. sidii aan horay idinkugu sheegay adinku lama mid ihidiin jaaliyadaha kale iyo dadkii soo barakacay walaalihiina reer Ciraaq mar hore ayay soo socdaaleen. waxaa kaloo jiray jaaliyado kale oo Carbeed iyo Islaam ah kuwaas oo soo hijrooday, laakiin su'aashu waxay tahay aaway xaggee mareen dadkaasi haatan? ma naftooda ayay u sameeyeen jiritaan ama saldhig? maya, way tageen, way ambadeen, shakhsiyadoodiina way luntay. waxayna noqdeen qayb ka tirsan dhaqanka reer Yurub, qayb ka tirsan diinta cusub ee Islaamka reer Galbeedka. waxay mareen halkii ay mareen hindidii loogu tegay Mareykanka. aaway hindidii hore ee Mareykanka deganeed? way tageen, laakiin adinku 1000 jeer salaan iga guddooma walaalaheena Soomaaliyeed. xaqiiqdii anigu waxaan ahay garsoore dhanka tartamada caalamiga ah ee Quraanka Kariimka ah. in badan ayaana garsoore ka ahaa tartamo Quraanka Kariimka ah oo ka dhacay qaaradda Yurub. mar walba oo uu Soomaali ka soo muuqdo isagoo matalaya dawlad, waxaa xiriiriyaha tartanku u yiraahdaa haatan waxaa soo kacaya ama hore looga yeerayaa dawladda Sweden. isla markiiba waxaa soo baxaya wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah. mar kale ayuu haddana leeyahay markanna waxaa soo dhaqaaqaya qof ka socda Norway, waxaana misna soo baxaysa oo qofkii Norwejiyaanka ahaa ee loo yeerayay ay noqonaysaa gabar Soomaaliyeed. waxaa misna la wacayaa tartamo ka socda Mareykanka. sidii oo kale waxaa soo baxaya 10 ka socota Soomaaliya. wariyaa tihiin Soomaaliyey, Ilaahay baa idinku dhaariyay ii sheega. taasi waa sir qarsoon oo u dhaxaysa adinka iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa laga yaabaa in waalidiintiinnii iyo awoowayaashiinnii uu jiray xiriir adag oo kala dhexeeyay Ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo markaasi aad adinkuna haatan ku nooshihiin khayraadkoodii iyo wanaaggii ay idinkaga tageen. marka Ilaahay uga mahad celiya arrintaasi. assalaamu calaykum. halkani waa kanaalka daruuraha. أنتم كما قلت لكم لستم كباقي الجاليات والمهجرين. إخوانكم من العراق هجروا من قبل، وفيه جاليات أخرى عربية وإسلامية هجرت، لكن أين هم الآن؟ هل أقاموا لأنفسهم كيانا؟ لا، ذابوا وضاعوا وتاهوا وذابت شخصيتهم وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من أخلاق أوروبا وجزءا لا يتجزأ من تدين أوروبا. ذابوا كما ذاب الهنود الحمر. أين هم الهنود الحمر اليوم؟ ذابوا. أما أنتم فألف تحية لإخواننا في الصومال. أنا في الحقيقة أنا حكم دولي في المسابقات العالمية، حكمت في أوروبا كثيرا، خاصة في أوروبا على القرآن الكريم. في كل مرة يتقدم من الدولة صومالي يقول القائم على المسابقة الآن تتقدم دولة السويد، فيطلع علينا شاب من الصومال. الآن يتقدم واحد من النرويج فتطلع علينا بنت من الصومال. الآن يتقدم واحد من أمريكا فيطلع علينا 10 من الصومال. من أنتم يا أهل الصومال؟ حدثوني بالله عليكم. هذا سر بينكم وبين ربكم. لعل آباءكم وأجدادكم كان بينهم وبين الله رباط قوي، فأنتم الآن تعيشون في خيراتهم، فاحمدوا الله على ذلك. مع المتسابق أحمد برهان محمد من الولايات المتحدة ويقرأ برواية الإمام حفص. waxaa maragma doonta ah in dadka Soomaaliyeed lagu tilmaamo ehelkii Quraanka, ahlul Qur'aan, oo ay yihiin dadka kaliya ee lahay adduunka ee aan Carab ahayn, intooda badanna xifdisan yihiin Quraanka Kariimka ah yar iyo weyn. waxaad arkaysaa in tartamayaasha Soomaalidu ay hareereeyeen tartamada waaweyn ee caalamiga ah ee Quraanka Kariimka ah ee sanad walba lagu qabto qaaradaha caalamka. أمين حسين من السويد. waxayna dadka adduunyadu la yaaban yihiin in wiil ama gabar Soomaali ah ay u tartamayaan wadamo Yurubiyaan ah, Eeshiyaan, Afrikaan ama Mareykan. waa yaab, waase nimco uu Alle siiyey dadka Soomaaliyeed. sanad walba haddii tartamada Quraanka uu qofka Soomaaliga ah kaalinta koowaad geli waayo, waxaa hubaal ah inuu soo galayo kaalimaha xiga ee 2 iyo 3. أما المركز الأول فقد فاز به المتسابق الحافظ أحمد برهان محمد من الولايات المتحدة الأمريكية. رملة
حسن من فنلندا وتقرأ برواية حفص عن عاصم. dowladaha carbeed oo carabiga uu quraanku ku qoran yahay ka fahmi og Soomaalida oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ka dhashay xagga tirada dadka quraanka dusha ka xafidsan marka wadan loo eego waxa ka badan Soomaalida oo midkooda miyiga ku nool iyo kan magaalka ku noolba ay dusha ka shubayaan kitaabka quraanka. haddii aad doonayso inaad si dhab ah u aragto waxa aan ka hadlayo ee ah in Soomaalidu ku fiican yihiin quraanka, waxaad kaliya u baahan tahay inaad la socoto tartamada sanadlaha ah ee quraanka kariimka ee waqtiyada Ramadaanka oo kale lagu qabto wadanka aad joogto, kaas oo si toos ah aad uga daawan karto telefishinka guriga ku yaala. midda ugu daran ayaa waxay tahay in carruurta Soomaaliyeed ay quraanka dusha ka akhrinayaan iyagoo aanan garanayn macnaha aayad ka mid ah kitaabka, taasoo ka yaabisay dadka ku nool dalalka fahmaya macnaha ku duugan aayadaha quraanka. si kasta oo qoysaska Soomaaliyeed ay dhibaatooyin dhaqaale u haystaan, haddana waxa Soomaalidu ay caan ku tahay inaysan carruurtooda ka reebin dugsiyada quraanka, gaar ahaan marka ay aad u yaryar yihiin si ubadkooda uu uga baxo mugdiga. waxaa kaloo dugsiyada qaar lagu bartaa afka Carabiga, akhriska iyo qoraalka. dugsiyada ay macallimiintoodu awoodin xoogaa dhaqaale ah oo ay ku furtaan meel hagaagsan oo firaashan isla markaana koronto iyo biyo leh, waxay iska ootaan geedaha hoostooda iyagoo carruurtana wax ku bara loox iyo qad. waxaa kale oo dadkeena Soomaaliyeed ay ku tilmaaman yihiin inay leeyihiin maskax fiican, waxaana ay dusha ka xifdiyaan kutub badan oo cilmi ah iyo gabayo aad u dhaadheer oo aan qornayn oo dadka qaar ay ku adag tahay inay xifdiyaan xitaa haddii ay qoraan. intaas oo ammaan ah oo ay dadka Soomaaliyeed ku sifoobeen, taasoo ay ku muteysteen xifdiga quraanka kariimka ah, ayaa haddana waxaa jirta hal caqabad oo weyn oo ka hor imaanaysa wanaaggaasi faraha badan, taas oo ah in inta badan dadka Soomaaliyeed oo xifdisan quraanka misna uu dalkeennu muddo dheer ku jiro dagaallo ahli ah oo qabali ah oo uu dhiig badan ku daatay, kuwaas oo safafkiisa hore ay ka qayb qaadanayaan dhalinyaro da'yar ah oo badankood ay quraanka garanayaan ama dusha ka xifdisan yihiin. waxaa markaa xaqiiqoobaysa in quraanka ay dhalinyaradeennu dusha ka xifdiyeen aysan garanayn macnihiisa oo af Soomaali ah, maadaama ay dareerinayaan aayado ay ka mid yihiin walaa taqtulu an-nafsa allatii xarrama Allahu ilaa bilxaq dhalikum wasaakum bihi lacallakum tacqiluun, oo macnaheedu yahay hadilina naftii uu alla reebay in xaqdarro lagu dilo, sidaas ayuuna Ilaahay idin farayaa, waxaa laga yaabaa inaad wax garataan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in sida uu dadkeenna maskaxdooda ugu fududeeyey quraanka kariimka ah uu qalbiyadoodana isugu soo dumo, colaadda dhexdeenna ahna noogu beddelo isjacayl iyo walaaltinimo.